warqadahaas iska daba socday markii la fiiriyo waxaa soo baxaya inuu jiro khilaaf aad u xoogan oo u dhaxeeya madaxda waqtigooda dhamaaday ee Hirshabeelle sida madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Sidaan ognahay madaxweynaha wuxuu soo saaray warqad oo ku magacaabaya guddiga hadda shaqeynaya ee jadwalka soo saaray isaga hore u soo saaray. Shalana wuxuu ka daba keenay markii ay jadwalka bilaabeen oo jadwalkii doorashada ay soo saareen oo maxay ahayd ay shaqada galeenba warqad uu ka daba keenay uu leeyahay dumara ka dhiman ama xubnaha weynaha ka dhiman. Markii hore isagoo awooday inuu ku soo daro ama uu yiraahdo shaqo geli ma kartaan ilaa inta laga helayo dumarkaas. Inta ma uusan dhihin waxaad dareemi kartaa marka inuu jiro khilaaf u dhaxeeya labadooda oo dhanka yani wax loo wado qaabka wax loo wado u dhaxeeya inuu jiro labadooda khilaaf inuu ka dhaxeeyo uu jiro. Sidoo kale doorashada Hirshabeelle markii la fiiriyo haatan oo 4 sano ay soo dhamaatay Hirshabeelle horta markii horena waxaa lagu dhistay si kadis ah oo yani wax la isku duuduubay la isku kadiyay isku jiijiid badan iyo orod badan oo waqtiga koobnaay iyo ayadoo la isla hayaan la kala tigino hal la helo dawlad goboleed Hirshabeelle magacaas u taagan hal la helo dib u heshiisiin badan iyo system badan iyo qanacsanaan badan ma jirin markii hore dhisay dawladda Xasan waa la dhisay dawladda Hirshabeelle ee la dhisay ayada laga rabo inay xal keento ay dib u heshiin samayso ay dhaqaajiso howlihii loo idmaday amnigii horumaradii wixii ay ka shaqeyso ma aysan dhicin 4 sano ka soo dhamaatay Hirshabeelle oo maxay ahayd yani inay xamar iyo jowhar u dhaxayaan waliba ayagoo diyaarada ku tagay oo aan wadooyinka mari karin oo la og yahay 4 sano oo la soo dhaafay hadda wadooyinka inta kaga dhimatay oo mas'uuliin ah iyo sidoo kale inta qaraxyo ka dhacay oo aysan jirin degmo isku gudbi karta aysan jirin hadda oo la joogo waqtigooda oo dhamaaday oo ay ahayd in doorasho la qaban qaabiyo si loo helo maamulkan hadda jira maamulka bedeli lahay loo helo. Waxaad moodaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya inay ka gaabisay oo ay ahayd ayada inay dhex gasho oo aan la isugu sinin sababtoo ah ayaga hadda madaxweynihii iyo ku-xigeenkii haddii hawsha loogu sino adiga lee daangeysa waay haddana ayaga ku heshiila oo guddiga uu soo saaray madaxweyne Waare ayuu haddana warqad ka daba keenay oo leeyahay maxay ahayd guddigan yani xubnaha ka dhiman ma shaqay karaan. waayahay khilaafkaas marka la eego madaxweynaha warqadii ka soo baxday in xubno ay ka maqan yihiin oo guddigu soo dhamaystirneen ma loo qaadan karaa in guddiga dhismihiisa la guda galo oo aan hadda loo baahnayn jadwal la soo saaro arrintaas khilaaf ay abuuraysaa mise waa dib u habeen oo guddigiiba ka bilaabatay? Ma waa khilaaf sababtoo ah marka hore horta meesha laga bilaabo qaldaneed in guddi laga bilaabo ama guddiga madaxweynaha iyo ku-xigeenka cid rabta soo saarto marka hore madaxweynaha soo saaray marka hore waxay ahayd wasaaradda arrimaha gudaha inay tagto doorashadan ayada ay la wareegto doorashooyinka ay la wareegto sidii lagu yaqaanba sida doorashooyinka kale ee ka dhacay wadanka yani guddi ka socda maxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle inay maxay ahayd hawsha ay la wareegaan. Sidoo kale markaan fiirino dhanka siyaasiyiinta ka soo jeedo Hirshabeelle markaad fiiriso waxaad moodaa baraaruga inuu yar yahay oo aan aad lagu baraarugsanayn inay doorasho jirtaba oo Hirshabeelle ay doorasho ka jirto dadka maxay ahayd hadalhaynta iyo baraaruga siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada dhalinyarada haweenka waxaad moodaa inay aad u yar tahay baraaruga xagga maxay ahayd bulshada. Ma aqaan ma waxa sababay dawladda dhexe oo lafteeda doorasho ka jirto oo muran iyo maxay ahayd sababsi oo ka jiro matana loo hangal taagaya ma aqaan laakiin waxaad moodaa inuu yar yahay baraaruga inuu yar yahay inaanay bulshada isku baraarugsanayn. Guddigaas warqadahan iska daba yimaad waxay caddeyn u tahay inay jirto khilaaf inuu jiro sidoo kale marka horena in la qaldaba habraaca in maxay ahayd yani warqad la soo saaro oo dib u heshiisiin ayadoo marka hore dib u heshiisiin la sameyn sababtoo ah waxa ka jira waan ognahay beelaha way isdiidan yihiin dhibaatooyin badan maxay ahayd yani xataa beelaha qaar waxay soo saareen inay maxay ahayd aysan yani waxa la isku haystaa xataa saami qaybsadii wixii marka waa khilaaf waay hor leh. khilaafkaas hadda carabkaaga ku dhufatay iyo aslada u dhaxeeya waxaa la leeyahay hadda khilaaf soo muuqday oo ama madaxweyne ku-xigeen ama gudoomiye baarlamaan soo horstaagay warbaahinta yiri arrintaas ma isku helnaa madaxdii haddii aan nahay ma jiro waxa iskhilaafsan maxay yihiin? Khilaafka wuxuu u dhaxeeya madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa Soomaaliya leeyahay wax qarsoomaya ma lahan. Dadku waxay leeyihiin guddigan waxaa watay Cali Guulaawe oo madaxweyne ku-xigeenka madaxweynahana marka hore waa u hoosgeliyay isagoo howlo kale iyo federaalka iyo maxay ahayd siyaasadii guud oo laga heshiinayo ku mashquulsan oo aan yani baraarug badan ka haysan ayuu hoosgeliyay oo u saxiixay
dib ayuu kasoo baraaruga marka waxaanu inay yihiin yani dadka meesha la keenaba inaysan ahayn hataa dadka guddiga qofka yani guddoomiyaha la leeyahay guddiga doorashada guddoomiye u yahay yani ma aha nin maxay ahayd hirshabelle kasoo jeedo ama hirshabelle degan dadkii deegaanka mala xaqiijiyo arrinta waa xaqiiqo waa yani dadka deegaanka ahaa oo la rabo inay ayaga hogaamiyaan inay ayaga maxay hawshii qabtaanba yani dad kale oo qof yani jeebkiisa uu kala yimid sida la sheegayo waxaa leeyahay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu yani dadkan maxay ahayd dad isaga la shaqeynaya ama isaga uu fahamsan yahay ama isaga gaarsii kara meesha uu doonayo ayuu la yimid waarna waa u ansixiyeen waa iska hadalheen bulshada oo caddeemo badan loo heen caddeemo badan looma hayo laakiin waxaa shakigaas waxaa abuuri kara waxaa sidoo kale abuuraya in ninka la yidhahdo waare oo marka horena saxiixay haddana uu diiday isagoo ka gaabsanaya inuu caddeeyo khilaaf ka jiro oo kusoo koobay waxaa ka maqan haweenaa ka maqan haweenka shalay markii loo keenayo haddii loo keenay shalay markii loo keenayo inuu yidhahdo aheyd meeshaan haweenaa ka maqan ha lagu soo daro kadib aan saxiixay caqabadda ku horgudban in doorashadu qaab jawi degan ay ku dhacday hirshabelle ma waxaa horseedaya madaxdii hadda kuraasta ku fadhida mise waxaa si guud u qaldan habraaca doorashooyinka aragtidayda habraaca doorashooyinka horta ma saxno si guud way qaldan yihiin sidoo kale madaxda hadda joogtana haddii doorasho la galo way aaminsan yihiin si kastay u dadaalaan inay soo laaban yihiin waxay doonayaan marka in doorashada hirshabelle dib loo dhigo si ay ugu gorgortamaan kuraasta xildhibaanada federaalka ee kasoo gelaya hirshabelle marka yani doorashaba ma rabaan sababtoo ah haddii hadda doorasho la galo waxay aaminsan yihiin ama waxay ogyihiin dadku waa baraarugeen sidii hore ma ahan in ayaga laga taqalusi doono oo dad cusub ay bedeli doonaan yani waa dadaalayaan ayagoo guddiga samaysteen wax walbay samaysteen wax bala isku xirteen haddana in ayagu laga taqalusi doono oo maamul cusub oo meesha imaan doono ayagoo taa ka duulaya marka waxay isku dayayaan inay ku dhameeyaan maxay ahayd iska dawareeg iyo warqadaan saana iyo maxay ahayd dadaa dhiman iyo saan waaye iyo beele hebel diid iyo inay waqti ku dhamaado isla markaana maxay ahayd yani la yiraahdo waxda kadib wax lagama gaaray xildhibaanada federaalka hala doorto kadib doorashada hirshabelle hala dhigo waxaan ognahay in isla November iyo December oo doorashooyinkii hirshabelle ahaayeen isla xilligan doorashooyinkii dowladda dhexe la qaban lahaa oo aqalkii sare xubnaha ka soo galay xubnihii golaha shacabka soo galayba beledweyne iyo Jowhar doorashooyinkooda ka kala dhici lahayn haddii khilaafkan uu sii socdo hirshabelle maxay u horseedayaan doorashooyinkeeda wallaahi horta waa dhibaato inteeda la eg waay sababtoo ah waxaa dalku waa federaal xubnaha baarlamaanka Soomaaliya waxay ka soo geli doonaan maxay ahayd dowlad goboleedyada sida dowlad goboleedka hirshabelle oo kale galmudug oo kale dowlad goboleedyada waddanka jira aqalka hoose waxaa la yidhi sidii soo baxdaba ama la sheegay horan ahaa jirtay waxaa dooranayo maxay ahayd jufada iskale kursigaas laakiin aqalka sare waxaa dooranaya baarlamaanka dowlad goboleedka haddii uusan jirin marka baarlamaanka hirshabelle baarlamaanka hadda joogo waqtigooda waa dhammaaday haddii aysan doorasho dhicin oo inta la doorto baarlamaan cusub iyo maamul cusub iyo madaxweyne iyo system uusan jirin waxaa adkaa doonto in xubnihii aqalka sare iyo aqalka hooseba in la doorto maxay ahayd doorashadii federaalka ay saameyn ku yeelan doonta haddii aan hadda laga gaarin oo dowladduna aysan soo faragelin wasaaradda arrimaha gudaha aysan soo faragelin oo aan la dhihin war waxaan waqtigun waa kooban yahay waa yar yahay shaqadan waa badan tahe hawsha hala dejiye haddaan la dhihin waa dhibaato ka imaan doonto xagga federaalka ka imaan doonto in xilligan la isqabqabsado muddaxileedkiina u dhammaado si guudna doorashooyinkii dowladda dhexe ay soo wajahan yihiin khilaafkan waxay dan ugu jirtaa xubno siyaasiyiina mise waa khilaaf uun xalkeedii la gaari karo indhaha laga daboolanayo aday aragtidaada horta in la isqabqabsado waxaa keenayo waqtigii oo dhammaaday iyo madaxda hadda joogto oo hamigooda uu yahay inay dib ugu soo laabtaan hirshabellena hadda markii laga hadlo horumarka ka jiray 4 sano waa la wada ogyahay qof ay ka qarsoontahay hadda ma jirto qof hadda maanta leh maxay ahayd madaxweyne Guudlaabe ama maxay ahayd waare ayaa hirshabelle wax ku soo kordhiyay ma jiro qofkii siyaabo kale u taageeray waa gooni laakiin waa la ogyahay waxa ay qabteen marka ayaga waxaan is leeyahay aniga dantooda ku jirta inay iska qabsadaan oo khilaaf maxay ahayd la yimaadaan haddaan la soo dhex gelin waan sababtoo ah waxaad ogtahay in hadda yani 4 sano cali Guudlaabe kala tusaale haddaan u soo qaadano gobolka shabeellada dhexe wuxuu ka soo ahaa 5 sano ama 4 sano wuxuu ka soo ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe uu ahaa hirshabelle la dhisay madaxweyne ku-xigeen ka noqday wuxuu joogaa 4 sano waxaad ku dartaa maxay ahayd 5 sano 9 sano waa 10 sano ba iska leh
maanta wuxuu u sharaxayaa marka madaxweynihii u sharaxayaa madaxweyne ku-xigeenka hadda waa kasoo tegey Hirshabelle waxa ka jiro marka isagaa la rabay inuu yidhaahdo warnimayahow 10 sano ka badan oo dib u dhaca dadkayga deegaankayga ma qabatee anigu waa iska tegaa meel kale wax laga sahlo marka la eego in gudoomiye gobol uu ahaa inuu madaxweyne ku-xigeen ahaa yani xilliyadaas waxaa u dhexeeyay farqiyo Hirshabelle ma aysan jirin markuu madaxweyne gudoomiye ku-xigeen ahaa marka looma nisbeyn karo in Hirshabelle uu gudoomiyaha ka ahay ayaa Hirshabelle ka mid ah gobolka maxaa u qabsoomay horumar nooca ka jira yani 10 sano iyo dawladda gacanteeda ku jira gobolkan Shabeelle u dhaxay oo isaga uu ka soo jeedo deegaan ahaan gudoomiyana uu ka soo noqday haddana uu madaxweyne ku yahay maxaa isbedel oo ka jira gobolkii horumar miyaa jira dhanka maxay ahayd amniga maxay ahayd yani dhan kasta marka laga fiiriyo waa sidii markii hore oo ahaa oo yani gudoomiyaha oo ahaa wax isbedel ma jiraan hadda gobolkii waa caasimadii Hirshabelle oo magaaladii Jowhar ay dowlad goboleedku degan yahay oo amnigeedii ay degan yihiin oo deegaano badan waxaa jira oo amni ah oo Shabeellada dhexe marka laftirkoodu mas-uuliyadda shakhsi ma qaadan kara marka la eego arrin dowladeed ama arrin maamul Hirshabelle ay wada taallaa marka la eego madaxweynaha iyo golihiisa iyo baarlamaankii waxay ku wada shaqeeyaan haddii marka dhinaca kale loo eegana magaalada Jowhar marka eedeen xilligan inaan waxba laga qaban gobolka Shabeellada dhexe sooma muuqato ka badbadin horta kaligiis maahan oo gobolka Shabeelle dhexe kaligiis dhiman labada gobolba maxay ahayd gudoomiyaalna way leeyihiin saad ogtahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan waa ogtahay inta la bedelay gudoomiyaha gobolka Shabeelle dhexe Axmed Meeri Makaraan lama bedelin isaga laakiin gudoomiyaha Hiiraan inta la bedelay ayuu ku quus qaatay sababtoo ah Soomaalidu waxay dhahdaa weesha baray dib waxa quus qaatay haddii gudoomiyihii Hiiraan intaad ogtahay la bedelay oo la leeyahay dakhliga ka soo baxo labadaas gobol oo Hiiraan iyo Shabeellada dhexe waa labada gobol oo leeyahay bad iyo waxay isku daradeen biri iyo webi isku darsadeen bad ay leeyihiin biri ay leeyihiin waxay leeyihiin webi ay leeyihiin wax soo saar bay leeyihiin laakiin waxay u baahan yihiin dad leh oo aaminsan inay ayagu leeyihiin rabana inay horumar gaarsiiyaan marka si guud marka loo eego marka gudoomiyaha yani waxa ka soo baxaba isbaarooyinka yaal maxay ahayd labada gobol yani isbaaraan dhihi karnaa sababtoo ah haddaysan sharci ahayn dadka jagmoontiyada safarka dadka lacagta looga qaado aysan Jowharna aysan tigin oo aan ognahay kuwaan hadda wadadan xeebta yaal oo gobolka Shabeelle marka la fiiriyo kuwaan wadada xeebta yaal xamara la keenaa xamar Hirshabelle miya yani xagga laga soo qaadaa xamara marka lagu qaybsadaa waa la wada ogyahay qof hadda oo maleema oo ka saaran yahay ka saaran marka yani wasaaradii maaliyadda Hirshabelle la rabay inay maamusho ayada la geeyo kadib ma jirto marka tan marka isaga waxaan ugu eedanay waxay tahay ayadin guud isaga waxa lagu eedanay waxay tahay isaga gudoomiye hoggaan ah marka caqabadii jiray 4 sano ee la soo dhaafay Hirshabelle waxa aragtaa in isbedel uusan iyo horumar uusan ka jirin maamulka wax horumar ma jiro sababtoo ah waxa daliil kugu ah Hirshabelle waa laba gobol degmooyin badan leeyihiin degmo u gudbi kartaa ma jirto oo si xor ah lagu mari karo oo cabsi la'aan ah lagu mari karo ma jirto iska daa in laami la dhiso iska daa in maxay ahayd laga shaqeeyo arrimo bulsho maxay ahayd waxbarasho ha noqoto caafimaad ha noqoto maxay ahayd yani ha noqoto ma jirto marka waa 4 sano waxaan dhihi karaa Cabduuli waxa taagan qodob siyaasi ah heshiiskii lagu dhisay Hirshabelle dastuuri ma uusan ahayn gobolka Hiiraan ayaa waxa uu qaatay madaxweynaha gobolka Shabeelle dhexe wuxuu qaatay caasimadii inkastoo la leeyahay caasimadii waa Buulburde waa la wareejin karaa haddana waxaa leeyahay isbedel ayaa ka jiri karo madaxweynaha wax u taagan gobolka Shabeellada dhexe dadka ka soo jeeda arrintan laftirkeedu Hirshabelle maxay dhaxalsiin kartaa ma horumar mise dib u dhac Hirshabelle waxay dhaxalsiin kartaa dib u dhac sababtoo ah waan ognahay markii horeba gobolka Hiiraan dadka degan madaxweynaha lagu sasabay ayadoo waaskooda uu diidayo oo odayaashooda ay diidayaan ay qaylinayaan ay leeyihiin maxay ahayd yani anaga ma rabno Hirshabelle waa ka baxaynaa waxaa la yidhi madaxweynaha qaata maanta marka haddii la yiraahdo madaxweynaha la ku haystaa caasimadina waa Jowhar madaxweynihina waxaan ku haysto maxay ahayd dadka Jowhar leh ama dadka Jowhar majority ka ah ayaa aan ku haysto waxaan dhici kartaa inay yiraahdaan anaga maxay ahayd danta nagu jirto maxay tahay Hiiraan aan nahay banaankan taagana sababtoo ah markii hore waxay ku doodayeen in gobolka Hiiraan uu yahay laba gobol oo yahay Sheekh Shariif u magacaabay dhaheen laba gobol oo ka kooban yahay marka ayaga waxay rabeen maamul goboleed gooni ah waa la isku soo jiijiiday waa la dhisay si kadis ay ahayd marka caqabadaha ka imaan karto oo ah dib u dhac ka imaan karto arrin dib u dhac keeni karto waa laakiin dastuuri ma ahano waa un heshiis qof kasta isu sharxi kara marka madaxweynaha taasoo dhigantaa qof kasta isu sharxi kara marka leeyahay galmudug tusaale galmudug
madaxweynaha dadaa leh waa la ogyahay haddana qof kasta isku soo sharxi karo oo nin la yiraahdo Cabdinaasir oo kamid ah maxay ahayd baarlamaanka yani iyo yani dad badan isku sharxay oo aan dad kale ahayn laakiin dadkaas waa la ogyahay inaysan maxay ahayd aysan madaxweyne ka noqonin waa un CV ku badsanayaan waxa u tartamay hay'ad meeshaas u tartamay ka rabaan maayne sida saxda waxa waa dad askale waa maamul goboleedka waa qaybsan yahay saan anigu aaminsanahay way ugu dambeyn Hirshabelle noocee ah ayaa loo baahan yahay marka la eego doorashooyinkan socda taladaada iyo aragtidaada maxaa ku talin lahayd Hirshabelle noocee dadka deegaankaas u baahan yihiin Hirshabelle waxa loo baahan yahay ama dadkaas iyo deegaankaas way u baahan yihiin Hirshabelle wax tar leh oo dadkaas iyo deegaankaas dhibaatooyinka haysta muddo dheer ka dul qaadi karta dhanka dawladda dhexe markaan ka eegno waxaad moodaa in sidii dawladda horeba dhacday dana gaaban oo siyaasadooda ayaga ay leeyihiin ay rabaan wax ku dhisaan sababtoo ah hadda xildhibaanaha ka soo baxay Hirshabelle xildhibaanadaas marka qof u xaglin kara ayay isku dayaan inay geestaan dadkii deegaankina aan dan ugu jirin dadkii deegaankina aan wax faa'iido u hayn waxay isku dayaan marka dawladda dhexe inay geestaan dad ayaga xildhibaanadaas u soo xareey kara ama u soo xaglin kara ay geesanayaan ayadoon laga fiirinayn war ninkan deegaanka muxuu tari doonaa dadkan muxuu tari doonaa Hirshabelle soo ka dhigi doonaa ayadoon laga eegin sidoo kale dadka reer Hirshabelle aqoon-yahanada odayaasha dhalinyarada haweenka dhammaan bulshada Hirshabelle ka soo jeedo waxaan ugu baaqayaa inay u istaagaan Hirshabelle ka duwan tii aan soo aragnay sababtoo ah 4 sanaan soo aragnay oo Hirshabelle ah oo Hirshabelle magac ahaan ay u jirtay marka uma baahanin ama Hirshabelle uma baahno in 4 kale laga sii lumiyo waxay u baahan tahay dad Hirshabelle aaminsan inay ayagu leeyihiin waxna ka soo saari kara ayaa loo baahan yahay sidoo kale dadka siyaasiyiinta oo hadda waaweynka sida galmudug oo kale galmudug waxa u istaagay dad siyaasiyiin oo waaweyn oo xildhibaanaha xataa xubinnimadooda ku waayay ma muuqato dadka ka soo jeeda Hirshabelle markaad fiiriso federaalku mas'uulsan yihiin waxaa la rabaa in xagga aadaan xataa yani ku dhiirigeliyaan dhalinta iyo aqoon-yahanada iyo maxay ahayd inay maxay ahayd yani ay dad yani deegaankaas ay leeyihiin ay dhistaan ayagana ay qayb ka noqdaan